حجاج بن يوسف ninkaa isaga ahi afartameeyadii buu Taayif ku dhashay taariikhda hijrigu meelaha markay ahayd 55 sano jiray oo taariikhda hijrigu markay 590 ahayd ayuu geeriyooday 25 sanana madax buu ahaa oo reer Bani Umayya ayuu madax u ahaa madaxda sare markii uu Taayif ka yimi xagga Shaam buu tagayo booliskii buu ku beeray dadkuna markay wax qabtaan baa la arkaa dhaqdhaqaaqooda marka madaxdii reer Bani Umayya waxay arkeen nin kulkulul oo dhaqdhaqaaq badan oo dhiig diiran inuu yahay aad baa loo soo dhaweeyay kolba meelaha loo dhiibay Xijaas buu madax ka noqday Ciraaq buu madax ka noqday meelo badan buu isku darsaday Abdulmalik ibn Marwan ayaa markaa uu madax u ahaa barasaabkiisii buu ahaa laba meelood oo uu ka damqanayo dhibaata kaga furnayd Abdulmalik Xajaaj buu adeegsaday labada meeloodna ceeb baa ka raacday isna uu isku canaantay markii dambe meeli waxa weeye Makkah al-Mukarrama magaalada Makka iyo Xijaas waxa ka madax ahaa asxaabigii Abdullah ibn Zubayr ibn Awaam looranay Asmaa bintu Abi Bakar ay ayayada wahay Zubayr ibn Awaam dhalay macna Asmaa bintu Abi Bakar ba hooyadii ahayd Abu Bakar ba awoow ahaa baan u jeedaa nin qaali oo saxaabi oo mujaahid abu ahaa marka madax buu ka ahaa inta aan idhaahdo Xijaaz iyo Makka iyo Madiina iyo inaha arrinkiisii markii uu Abdulmalik ku yarag kalgashay isna meel gooniya uu magacaawday Xajaaj buu adeegsaday Xajaajna reer Makana hilifuhu qaaday oo waa laayay Kacbadana qaybuu dumiyay Abdullah ibn Zubayrna wuu dilay Makka albaabkeedana uu ka soo laalaadiyay meydkiisa hooyadii ina Abu Bakar Abdullah dhashayna wuu tagay oo ku tiiqtiiqsaday marka wuxuu yiri ka waran maxaan ku qabtaa hooye maxaan ku qabtaa buu isagoo hujastiyay anigu hooyo kuuma hibayt laakiin ninka halka aad ka soo laalaadisay meydkiisan hooyo wax kaas wuxuu ahaabay dhulbiis buu ahaa dhulbiis dalkiya dadkaan ka qabanay adiga dhulbiis sabayt nabiga waxaan ka maqlay isagoo leh reer Thaqiif waxa ka soo bixi doona beenaale iyo mid mubiira oo waxalaaga beelaani waanu aragno ninka Mukhtaar la oran jiray buu ahaa ee nabinimada sheegtay aduguna kii dadka halaagaya dalka inaad tahay baan ku arka laakiinni mubiirul munaafiqiin mubiiriga soo qaad ku wax baabiya munaafiqiintan baabiya buu sida inaan kaaga kale ninka isaga Xajaaj bin Yuusuf la yiraahdo arinta kale ee dibka ah ee uu geystay waa dhacdadan iyaduna aad ka waadkay dhacdadan imka aynu ka sheekaynay dhacla sahlan maaha dhacda uu ku dilay 130,000 oo qof oo muslimiina oo taabiciintii u badnaa 130,000 oo culimadii iyo madaxdii iyo acyaantii iyo mujaahidiintii u badnaa ayaa halkaa uu ku dilay waynu gali doonaa taa ninka saddexaad ee Xajaaj ay dagaalameen waxa weeye ninka la yiraahdo Abdurrahman ibn Muhammad ibn al-Ash'ath isaguna raggii Kuufa ku dhasho reer Kuufa ahaa halkaas uu ku koray reerkooduna xoog buu lahaa madaxdii reer Bani Umayya u shaqaynaysay buu ka mid noqday wuxuu ahaa dadkii soo baxay dagaalka ku soo baxay buu isaguna ahaa markii cadawga lala dagaalamayay raggii aad ka u muuqday buu ahaa ibn Ash'ath ninka la yiraahdo taariikhdiisa aynu ka sheekaynayna waay waqtiyada kamida ayaa markaa waxa adkaatay in la xoreeyo meeshan Hindiya iyo
باكستان iyo Iran dhinaceeda iyo Afghanistan iyo dhulkaas oo bilaadu Turki loo oran jiray atract ayaa adkaatay inkii halka ka dagaalamayayna waa dileene mujaahidka ahaa ee colka madaxda ka ahaa Xajaaj baa markaa wuxuu doonay oo dhulka Ciraaq ka madax ahaa inuu adeegsado nin adag oo nimanka indhaha ka rida oo ka soo dhalaala dagaalkooda ninkan buu markaa u yeedhay la yiraahdo ibn al-Ash'ath magaciisa wuxuuna dadku iska yiraahdaan ibn al-Ash'athna waa la yiraahdaa Abdurrahman ibn al-Ash'athna waa la yiraahdaa laakiin Muhammad baa ku dhex jira waa Abdurrahman ibn Muhammad ibn al-Ash'ath markaa Muhammad ka la iska dhaafaa Ash'ath kaasoo awowgiisiina waxa la yiraahdaa waa ragii ku lug lahaa dilkii Uthman taana way sheegaan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Xajaaj markaa ninkii buu yeedhay wuxuu waxaan doonayaa inaad xorayso dhinaca iyada oo aad xagga la mari waay aad igaga filaato ibn al-Ash'ath halku ka soo baxay isaguna salaanka uu ka fuulay waynu bilaabi doonaa halkaa weey markii damana arrinkiisu sidoo ku dambeeyay iyaduna waynu arki doonaa marka ibn al-Ash'ath kaasina wuxuu caan ku ahaa nimanka dagaalama ee colka horkaca ee cadawga aad u jabiyo haanji oo gaaladii markaa la mari waayay aad buu qabsado waa xoreeyay waay inaha aan ku dhaaf Xajaaj bin Yusuf iyo ninka Abdurrahman la yiraahdo ibn al-Ash'ath taariikhdooda حافظ ابن كثير ayaynu ka soo qaadan doonaa taariikhda sidoo qoray oo taariikhda kitaabka weyn taariikhda la qoray isagu markaa rahimahullah waxa aad looga soo cawday buu ninka la yiraahdo Rutbil al-Kafir malik Turk ninkii dhulka aynu sheegnay bariga ka madaxda ahaa ayaa aad looga soo qayliyay oo la ninka waa la mari laayay Xajaaj markaa wuxuu doonay ninka caabiya inuu u xulo wuxuu diray u yeeray markaa Abdurrahman si uu hogaamiyo colka markaa Abdurrahman uu iimanaya Xajaaj bin Yusuf waxa la joogay imaamka la oran jiray Aamir ash-Sha'bi oo isagana taariikhdiisa aynu wax ka xusu doonaa la fadhiyay Xajaaj ninkan uu leeyahay colka ha hogaamiye ibn al-Ash'ath markuu halkaa ka soo baxay ayaa wuxuu la hadlay Sha'bi imaam Sha'bi oo la fadhiya ayuu Xajaaj la hadlaa wuxuu yiri انظر ila mishyatihi wallahi laqad hamamtu an adriba unuqa ninka soo socda inuu yeeray ma aragtaa Sha'biyow ibn Ash'ath la yiraahdo bal kibirkiisa eeg sidoo soo socdo wallahi waxaan ku fikireynaa qoorta ka jaro wayse seegayn hoosta waa kaco laakiin inuu ku guuraa buu doonayaa inuu ku guuro oo cadawga uu ku difaaca buu doonayaa imaam Sha'bi rahimahullah isagoo aan dadka isku diraynin laakiin dadka u naseexaynaya ayaa markii dambe wuxuu la hadlay ninkan Xajaaj uu yeeray la yiraahdo Abdurrahman ibn Ash'ath markaas wuxuu yiri wareedha markii aan la joogay ninkani sida adag buu ku xantay uu kugu soo maqan yahay ogow ninkaasi Xajaaj la yiraahdo uu ku qaniinsan yahay oo wiila ka xantay marka uu naseexaynaya cidlayu ka helin buu isleey isagii ibn al-Ash'athna uu hadlaa wuxuu yiri wa ana wallahi la ajhadanna an uzila an sultanihi in tala bi al-baqa walla anna waan dhaartay hadii cimrigaygu sii jiro meesha waan ka dhaqaajin doonaa way soo dhaarsanay isagu misaas igu yiri anaaba riman buu aniga laftayda ayaa riman mar waan ku quusan doonaa buu waa laba nin oo isu shaqeynay haddana hoosta isaga hanjabay marka horeba sheekadooda caynkaas ah oo kibir baa la iskala horiyay ibn Ash'ath colkii buu hogaamiyay xagga iyo dhulka aynu sheegayno ee Sindi iyo Punjab iyo dhulka shishe Afghanistan iyo Iran iyo Pakistan iyo dhulka ayuu ka xeeyay colkii ilaa Hindiya wuxuu furay magaalooyin badan
tan markuu xoreeyo tukalu xoreeya gaaladii baa guura uu adoonsaday khadiyaan bay ka joogsadeen dhul dhan buu sii xoreeyo aad u fara badan markii uu fogaaday ayaa wuxuu la hadlay colkiioo waxa uu yidhi sanadkan soo socda col fara badan baa la socda waynu nasanaynaa dagaalkana waynu yara joojinaynaa colkuna wuu xoogaysanayaa magaalooyinkan aynu xoraynayna dee maamul baynu u samaynaynaa waynu nadaaminaynaa farsamu wataa markaa xajaaj bin yuusuf baa maqlay ninkii colkii wuu joojiyey colkii uu gaalada isna wuxuuba lahaa ku dhinto balaayadu oo halkaa ha kaaga dhinto colkii wuu joojiyey baa lagu yidhi waraaq adag buu soo qoray uu ku caayayo ku canaananayo oo uu leeyahy waan maqlay inaad colkii joojisood igu madaxadagtay dagaalka sii wad isna markaasuu halkaa ku joojiyoo waabuu fallaagoobay caasinimuu bilaabay colkiina wuu ururiyey uu la socdayoo wuxuu uhi waryaadhaheen ninkii caynkaasuu ina leeyahy ummaddaa dhulkaasuun sii dhex galo halkaa ku madha buu leeyahy dee maxay idinla tahay ninka anugu kama amar qaadanaya ma igu raacsantii kama amar qaadanayno annaguna xajaaj waannu naqaanaa waxa istaagay ninkan la yidhaahdo cabduraxmaan aabbihii oo muxamed ibnu ashcaf la yidhaahdaaba colka la socda kan qaa'idu jeeshka ah ee xajaaj dagaalami doonaa aabbihii baa meesha maraya odaygiina wuxuu ahaa oday khatiiba oo mufawaha oo balaayo ah ilaa waxaa layaa masku masunbuu dhalaa abeesaduna abeesunbay dhashaa ninkanba kulaylkan odaygaa ku dhaloo meesha maraya waa gabayaa xajaaj buu gabay u turiyaa oo uu ku hurgufaa oo inankiisu u hiilinaya odaygii baa isna meeshii ka hadlayoo markii la caasigaroobay wuxuu idhi ninkaa la yidhaahdo xajaaj wuxuu ka dhigan yahay sidii ninkii hadlayee yidhi ixmil cabdaka cala alfaras fa in halaka wa in najaa falaka waa sidii mahmahadii carbeede odhanaysay addoonkaaga faraska ku eriyoo hadduu dhintana wuu ku dhaafay hadduu noolaadana aduu ku shaqayso sidaasuu ka dhigan yahi wuxuu doonayaa haddii aynu haddaynu halaagsannana inuu inaga nasto haddaynu guulaysannana guusheenna inuu isagu sheegto owdhaa dhulka anaa xoreeyey sidaasaa uu arrinkii u waday markaa waxay isla garteen in la caasiyo ninkii la odhan jiray xajaaj saacaddaa laga bilaabo ninkii gobolkan ciraaq haystay ama dhulkaa ciraaq iyo ilaa eeraan ee cabdulmalik ibnu marwaan madaxweynaha wakiilka uga ahaa kama amar qaadanna bay dhahaan laynaguma hadleeyo ikhlacuu caduw allaahi alxajaaj wa baayicuu liamiirikum cabdiraxmaan ibna ashcaf sidaasaa markaa lagu dhawaaqo waxa lay saacaddaa laga bilaabo ninkan baynu heshiis la gallay ninkanaa madaxinoo ah iska tuura xajaaj ma tuurteen tuurnaydaa lay xajaaj colkii faraha badnaa oo 150 kun ku dhow 150 kun oo ciidana taasaa la isla qaatay dadkuna xajaajkani nin dhib badan oo shariira buu ahaayo waxa u sahlay inay saacidaan ninkan xajaaj bala nacay laakiin xajaaj tuurnay un baa la yidhi lama soo qaadin markaa madaxweynihii muslimiinta xukumayay cabdulmalik in isaga lagu caasigaroobay taa la islama soo qaadin ee waa laga aamusay ninkii isaga ahaa marka wuxuu yidhi dee kol haddaynu ninkii ku caasigarowni xajaaj wayna soo dabagelayaa wuu inagu soo duulayaa dagaalkii gaalada halkaa inaga joojiya isagii aan u jeesanna haddaba xaggiisii baynu u noqonaynaaye iyo ciraaq baynu dib ugu noqonaynaaye laakiin dee ninkii hore uma sii socon karno horta aan iska xorayno sidii baa markaa lagu heshiiyo colkii dib buu soo ruqaansaday intuu xaggii gaalada laga soo noqday ayaa xaggii dambe loo soo ruqaansaday ee basre iyo baqhdaad iyo kuufa iyo dhulkii baa dib lagu soo noqday markay ku soo dhowaadeen dhulkaa aynu sheegayna imaka xajaajna ku nool yahay ayaa la wada hadlo waxaa la yidhi waar dee nin baa u madaxa cabdulmalik la yidhaa meesha madaxweyne ka ah ninkanaana inagu hayo inoo keenay miyay suuragal tahay
dee bakhtigiiyo fuudkiisa inaynu kala qaadno oo idhaahno bakhtiguna waa xaaraan fuudkiisuna waa xalaal ma kala qaadi karayne kabiyo wixeeda waa la isla tuuraaye haddaynu xajaaj tuurnay kaw madaxda ee cabdulmaligna tuura ku caasigarooba ma sidaasaynu yeelna waa la isla qayliyey waanu idinku raacsanahay baa layidhi baycadiibaa haddana loo jadiidiyey mar labaadoo meeshaba adaa ka madaxweynea baa layidhi cabdiraxmaanow ina ashcafow adaa meesha ka cabdilmaliga oo ka xajaaja oo ka madaxweyne ah waa ku kaa markaa fabaayacuuhu calaa kitaabi illaahi wa sunnati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa khalci a'immati dalaalati wa jihaadi almulxidiin kitaabka ilaahay baanu kugula bayco kugula gallay sunnada rasuulkaanu kugula gallay iyo inaynu la dagaalanno madaxda hallowga iyo halaagga ee ummadda halaagaya arrintu markii hore xajaaj bay taagnayd xajaaj markuu warkii maqlay ilaa mar walba warkii baa la kala qaadanayaae wuxuu u diray fariin madaxweynihii muslimiinta ee markaa cabdulmalik ayuu fariin u diray markaa wuxuu yidhi arrinka halkaasu maraya anigay taagnayd laakiin aday ku soo gaadhay hadda adaa lagu soo gaadhay adigiina waa lagu tuuray waa lagugu caasi garoobay dowlad baa meeshii laga dhisay dee la soco fanzacaja alkhaliifatu wahtamma marka ninkii cabdilmalik la odhan jiray way ku ciirtay talaa ku ciirtay markii la yidhi ummaddii halkaa joogtee faraha badnayd oo culimo leh oo quraa'a leh oo cid walba leh waa laga caasigarooba adigii xajaajba waa la tuuray arrinkii waa ku adkaaday wasaca annaasixuuna waalmuslixuuna fii dar'i alfitna cid waloo dhaqdhaqaaqi karaysayba waxay markaa u dhaqdhaqaaqda in fitnada la damiyo oo dee waa la garanayaa ibnu ashcafna waa nin dagaalyahana xajaajna waa dagaalyahan dadka la socdaana waa muslimiintii oo xulkii ahoo qiimo badan baa la kala socda waxay isku dilayaan inuu muslimkii yahay baa maaragtay la garanayaa horena muslims dila waa loo soo maray wakhtigii cali iyo mucaawiya radia allaahu canhuma dhibka ka dhacay baa la garanaya marka cid waliba way suxulduubtayoo way oroday bal si dagaalkaa loo joojiyo laakiin waxaa la yidhaahdaa miidaame dhagama leh hadduu malag dhawaaqaayo miidaamuhu waa qofka sii dhimanaya miidaamuhu qofka sii dhimanaya naftu hayso ee geeri halkan ugu qoran dhag kuu dhigi maayo haddii malaguu gacan haadinayuu yeedhaya malakulmowdkiibaa u yeedhaya ku dhagaysan maayo marka in alla inta meeshan ku dhimanaysaa cid ma maqlayso ninkii la odhan jiray ibna ashcaf ragga la hadlay waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray muhallab ibna abi sufra muhallabkaasina wuxuu ahaa raggii muxanakiinta ahaa ee dagaalka aadka u yaqaanin ee lodkiisanoo kale ahaa ee madaxda reer bani umaye ka mid ahaa ee cadowga xorayn jiray waraaq buu u qoray wuxuu leeyahay war madaxdaha caasiin war way ka dariye ka rayn maysida ka daah wuxuu leeyahay qad wadacta rijlaka fii rikaabin tawiil wallaahi lugta waxaad saarta meel aad u fogoo kula fogaan karta ibqi calaa ummati muxamadin allaha waar ummadda nebi maxamed ilaahay kaga cabso naftaada ha halaagin dhiigga ha daadinin waljamaacata laa tufariqa walbaycata falaa tankudha baycad ku jirtaa oo madaxweyneaad heshiis la gasha ha jabinin muslimka dhiiggiisana ha daadinin ninkaasi aad buu ula hadlay waraaq dheer buu u qoray waaya arrinkii markaa wuxuu istaagay qir iyo qir dee cabdulmalikna muu dee ninkii isaga ahaa wuxuu doonaya uma yeelin ninkiina wuu tanaasuli waayey waxaa markaa dhacday cabdulmalik ibnu marwaan oo madaxweyniya oo markaa dee xaggaa shaam buu xaruntu waa shaam dimashq iyo dhulkaa wey reer bani umaye dowladdii xaggaasa xarun u ah wuxuu markaa yidhi miyay soo noqon waayeen haa xajaaj buu markaa u soo diyaariyey col culus oo ciraaq ugu yimaada oo dee waxaa markaa macruufa dee qofka madaxweyne loo ictiraafsan yahay ee muslimku baycada la galay dee waa cabdulmalikun wey haba qaldanaado waxaa dulmiyayo laakiin ninka rasmiyan dee meeshii imaka haystaa waa isaga un colkaasuu soo diyaariyey col aad u fara badan ayuu soo diyaariyey
ibnul ashcafna isaguna abaabul aad u badan buu sameeyeyo waxa uu isaguna isu diyaariyey inuu col urursado col badan buu isaguna soo urursaday wuxuu isu keenay markaa 33,000 faras wa 120,000 raajil gaadiid teknika ahoo 33,000 oo nin oo fardafuula iyo 120,000 oo nin oo lugaynaya 150,000 oo qof oo intaasina lugaynaysa efenterit intaasina gaadiid fuushan tahay ayuu soo diyaarsaday rag baa la taliyay waxay yiraahdeen war waxani waa dagaal in mabda lagu dagaalamo way sidaa daraaddeed ninkan waa xajaaj ninkan ka hor imanaya nin sahlan ma aha waxaan kugula talinaynaa culimada iyo quraa'ada iyo nimanka fiqiga yaqaana iyo nimanka cibaadaysta iyo culimada doon soo ururi culimada ha iska garab taagaan maalintaas uu dadku raacaya mar alla marka la arko ibn ashcaf in culimadii wadanku ku raacday Ciraaq Khuraasaan dhulkaas oo dhan ayaa lagu raaci doonaa sidii buu yeelay culimadii buu nin ugu tagay ragga aynu sheegi doono magacyadooda ayuu nin ugu tagay raggii wadanka culimada ka ah wuxuu leeyahay xajaaj bin yuusuf inuu dhulbiis yahay mufsida oo dal iyo diin iyo dad bakhribay sheekh hebel miyaad ka shakisan ma kama shakisan maanta waa la fujinayaa ninkii udubada loo saaraya waa la tuuraya waa la fujinayaa miyaad ka hadhay mise waad nala hinjin diinta ilaahay baa loo nusraynaya xajaaj baa daaqada laga tuurayaa bal ma ayna mariya waayo hadaba dadka soo wacdi ceel iyo calaad dadku qadiyaan baa laga taagay kolkaas nin waliba dadkii wacdiyay hadallada inuu sheegi doonaa kolba nin ka hadlay war ninka hal la qabto war xajaaj baa maanta loo baxay war ninka hal la raaco col aad u fara badan buu sidaa ku soo diyaarsaday iyadoo culimadu ay la socda aad u fara badan in cidba ka harin الحافظ ابن كثير وحي له وتفاقم الأمر وكثر متابع ابن الأشعث على ذلك أرنكي وسيع صلاضي رقي راعي ابن الأشعث آد بوبطي وتفرقت الكلمة جدا كلمة دي مسلمين تنوي قيب سنتي وعظم الخطب وتسع الخرب بلادنا ويسيوينا كلاكعين وبطي لبادي على المركعة ويس هلان يوم الجماجم أما ما لا يدهد دير الجماجم أي مال ayaa la isku helay dhulkaas marka kamida Ciraaq ayaa la isku helay ragga marka goobta iyada abaabulka xagga ibn ash'af la socday waxa kamid ahaa imaamkii weynaa la oran jiray Aamir ibn Shurahbil ash-Sha'bi rahimahullah imaamkaas kamid ahaa oo demarkii la xajaaj baa shaqo laga qabanaya isna taageeray ninkan kacdoonka sameeyay ee falaagoobay Sufyaan ibn Uyayna rahimahullah markuu xajaaj ninka tacliiqinayo imaamka Sha'bi waxa uu leeyahay saddexba ummadda nabiga ugu cilmi badnaa ibn Abbas waqtigiisii isaga ugu cilmi badnaa Sha'bina waqtigiisii isaga ugu cilmi badnaa waa sidoo leeyahay isagu weey واي ninkalana uu sheegay wuxuu markaa ahaa asxaabtoo jooga ayuu fatwada bixin jiray nin kale oo salafkiina wuxuu leeyahay 500 asxaabi baan la kulmo maan arag ninka shacbiga taabiciga ninka cilmi badan maan arag wuxuu ahaa nin jimiri yar ama aan kuusnayn nin yaroo dhuuban buu ahaa gaaban markaa waxaa la odhan jiray aqoontaaduna way badantay itaalkaaguna wuu yaryahay waxaanoo cilmiga halkeed ku sidaa waxaa layga raacay buuhi mataan baan ahaa mataan markaa riximka hooyo ayaa aniga iyo mataankii kale nagu qaybsamay awooddii labadayadaasaa kala qaybsannay ninkaa isagaa waxaa la weydiiyey imaamu Sha'bi rahimahullah cilmiga badan maxaad ku heshay wuxuu waxaan ku helay 3 arrimood bi'uluwi al-himma hamadaydo sareysay
وصبر الحمامة إيا حمام كشبرت الله إلى هذا سبر كيدو كلنا والله وبكور الغراب كالله هذا تكوه كلنا والله شمبر كان تكاه صومالر صباح دي ينقصوا كالله يا وكماشا نونك قايلين يا ولقينا وان كليه جري ولقينا وان سو سفريي ولقينا هنكي وو سريو ومد علميغا inaan ururiyaa baan isku day jiray inkii caynka aan aad u cibaado badan la imaam shacbi wuxuu kamid yahay aimada waaweyn marka fiqiga iyo xadiis muhaddith faqih ayuu ahaa mufassir ragii hadlay buu kamid ahaa waxa uu qaatiluhum ala jawrihim kula dagaalama reer bani umayya kardaradooda واستغلالهم الضعفاء هي مساكين تاي دلمين اي دبين وإماتتهم الصلاة هي الصلاة دي اي نغا ديلين صلاة دي يدنا وي نغا ديلين بول oo waqtigeedii bay ka saareen oo waqtigii nabiga uu dadka tukan jiray ka oo jamciiba wala tukan jiray jamc way ku tukan jireen laakiin mararka qaar kood bay salaadu dadka ka khalkhali jirtay Walid ibn Abd al-Malik buu ahaan filaya isagoo cabsan reer bani umayya aanu ahaa deena Abd al-Malik buu ahaa isagoo cabsan buu salaadii subax dadka tukiyay afar ragcadood buu ka dhigay markaasuu ka soo horjeedsada markaasaa wuxuu hal aziiduku miyaan idin kordhiyaa markaasay dhahan walaa zilna fi ziyada marka horaabay kororsanaydba marka horaad afar ka dhigtay miyaad ku sii waday culimada iyo asxaabta iyo way iskala tukan jireen goonina way u tukan jireen waxa oran jireen fitnadooda dooni mayna in la dagaalanay waqti salaada waqtigeedana aynu tukanno jamacoodana aynu la tukanno si aan la inoo oranin umadida kala kiciyeen asxaab saasay ula dhaqmi jireen marka ninkaasi hadalkaas u jeediyay dagaalkii markuu sidaa ku sii bilaabmay xabadu way socoto mushkiladan ila 4 sano ay socotay laakiin waxay sii adkaatay 103 maalmood 103 maalmood baan meel kale loo kala kicin waa 3 bilood iyo badh intaasay xabadu socotay gowda un la isku hayay waxa la galay 4 dagaal 103 maalmood waa niman dagaal cuna oo inta cadawgii la dagaalamay oo mujaahidiintii baa ishelay 103 ka dagaal 3 bilood iyo barka dhacay 3 waxa lagu jabiyay xajaaj iyo colkiisa hal marna isaga wax jabiyay waa markii la kala food qaaday dhamaatayba sheekadu ninkaas sabirkiisa 3 jeer baa la soo jabiyay 3 bilood iyo barka muu qoosanin oo muu tagin markii ugu dambeeyay ayaa uu jabiyay colkii markiina uu baabiyay waxba kama reebinba labada qolo way kala duwanaayeen qoladan ibn ash'ath hogaaminaya waxay ka agdhow yihiin dawaa Ciraaq oo reer Ciraaq waxa ay ka agdhow yihiin dadkoodii iyo deegaamadoodii iyo dhaqaalahoodii qoladan reer Shaamna halkay ka yimaadeen ninka Suuriya ka yimid Ciraaq ka dagaalamaya maxaad u malaynaysaa waxa weeye intee oo masaafada buu soo jaray taakulayntii baa adag dhaqaalihii baa ku yar marka colkan xajaaj la socda gaajadii baa ku badatay hubkii baa ka yaraaday dhaawicii baa meel ay geeyaan ku adkaatay duruuftii baa jiq ah marka qoladan ibn ash'ath la socotaa waxay istaawinayaan ama isu aaminsan yihiin oo ay dagaalka u joojin waayeen arnimanku waa niman meel dheer ka yimide dhaqsayn u gumaadaynaa ha joojinina saasay isku qancinayaan dawlad baa ka dambaysa malaha oo abdo qalab xisaab abdo qalid al xisaab baa dhacda marar badan dadku had iyo jeer markay isqancinayaan xisaabta ka xumaata markii la isbari waayay madaxweynihii muslimiinta Abdul Malik ayaa qoraal soo sameeyay cidna uu soo diray inamadiisii buu soo diray wuxuu nimanka ibn ash'ath iyo culimada faraha badan iyo ragga quraanka akhriya nimanka quraanka akhriyo qura 10 kun ah oo meesha ka dagaalamaya wixii aynu qaarin naqaanay intooda in badan oo kamid ah dagaalkaasay ku jiraan oo xajaaj caladiisii baa u geysay sabirkii baa dadka ka soo madhay
wuu soo diray dadkaasoo wuxuu yidhi waxa u sheegtaan ninkaa ibnu ashcaf la yidhaahdo inuu xabadda joojiyo isagii cidda la socota xajaaj binu yuusufna waan ka casilayaa isaguna meeshuu doonaya ninkaasi madaxa ka noqdo dagaalka ummadda ha laga joojiyo markii warkaasi soo gaadhay ibnu ashcaf wuu yara hungurooday hunguri baa yara galay ila isaga qudhiisi madaxtinimuu doonayaa markaa wuxuu si war ma ka yeeshaa codsigaa laakiin raggiisii buu la shirayoo wuxuu hi war maxay idinla taha dee ninkii caynkaas u soo jeediya xajaajkii xumaana waan eryayaa adigana madax baan kaa dhigayaa dadkana masaariiftii u socotay oo dhan baan u daynayaa marka qof wal oo qaariya iyo shaqaalihiisaba mushahar baa loo qoray qof wal oo culimmada ka mida mushahar buu lahaan jiray oo la siin jiray baanka muslimiinta laga siin jiray wixii uu xajaaj kala tuurayna waan soo celinayaa culimmadii quraa'adii mushaharkoodii dhaqaalahoodii ha wada qaateen ninkan colka hogaaminayowna meeshaad doonaysa waddanka madax ka noqo xajaajna waan erayaa war intaasi ma idin qancisaa war intaasuu soo jeediye ka warrama waa la qayliyey had iyo jeer haddaad dad cabbayso way adkaanaysaa si dhinkooda sidaad u dabciso ilaa intay qarxayaan balaayo aanad dejin karaynin lama istaadho oo imminka shayga aynu aad ugu faraxnay markii hore rabiic alcarabi loodhan jiray gugii carabta kacdoonnadii ka dhacay 5 dowladooda muslimiinta ka mida maanta mid quroo lagu guulaystay ma jiro laakiin waxaynu filaynay digtaytaradii dadka cirbaha soo cunay ee muslimka soo laayay haddii maanta ashacbu yuriid la yidhi isqaata nidaam oo shicibkii israacay inay ka raynaysaa baynu moodayn laakiin yuhuudi iyo nasaarun baa sidaa u dhex cararayoo isteerinkii innagu maynaa leexin karin iyagaa leexiyey markaa bal iminka liibiya halkay ku dambaysay liibiya way ka dartay oo shidaalkeedii gaalunbaa iska qaadata maanta shidaalka adduunyada u wanaagsan fawdadaasu iskaga jirtaa shidaalkunbay dhuraan baddaa yurub baa laga dhoofiyaa meeshii la odhan jiray suuriya khalaas quwadii waaweynaa baa kala goostay laakaan ninkiina lagu hayo muslim sunnigii unbaa waddankii ka guuray baasaboorradii iyo jinsiyaddii waddankana shiicaa la siiyey shiicaa la wareegtay shiicadoo 20 ahayd baa la wareegtay 80kii sunniga ahaana yurub iyo kanada loo saaray yaman halkay ku dambaysay waa waddanka adduunyada u gaajo badan maanta ee u majaaco badan sii baaba'aya meeshii la odhan jiray masar yuhuudda ka markhaati kaco waxay dhahaan taariikhdayada namuu soo marin ninkaa nooga wanaagsan ninkaa nin nooga fiican oo nooga adeega badan nama soo marin bay dhahaan xaggay ku dambaysay meeshii la odhan jiray tuunus waxay dadku moodayaan inay intifaadadeeda ama kacdoonkii guulaystay waa guuldarraystay dadkii islaamiyiinta ahaa markay arkeen kuwii masar sida loo xidhxidhay way tanaasuleen shareecada inagu dhaqadiiba way ka tanaasuleenba way bakaylow burka hoosta ka gal way gabbadeen ka gabba baydhan saasa akhwaan muslimiinkii masar loo galay inana waa la inagu soo socda war xukunka naga hooya mashruucii islaamiga ahaaba way ka tanaasuleen shareecadaha lagu dhaqmo maalin dhoweyd baynu arkaynay iyadoo ka madaxweynaha hadlayuu leeyahay annaga shareeca nooma taallo dowladdayada diinta waa in laga ilaaliyaa marka wixii marka aad kiciso aad istaadhashay aanad kontarooli karaynin meel daran buu ka dhici way ka sii dari markaa waa in la eegaa waxyaabaa laga faa'iiday waynu arki doonnaa ninkan isagiihi rag dadkii uu hor kacayay waxu sheeg buu islo isagaaba lagu kacayaa waxaa lagu yidhi dee in badan baad na soo wadoodna soo hoggaaminaysa madaxweyneha baanu kaa dhignayba xajaaj iyo cabdulmelikba waanu kaa tuurnay xaggee lagaa haystaa miyaanaad isaaminsanayn ma iminkaa doonaysaa kuwii inaad dabadhilif u noqoto markaa waaba lagu dili buu isiri oo ku kiciya buuhi waa yahay dagaalkii waa la isku waday 84kaa dagaal markay dhaceen ummad aad u fara badanina dhimatay ninkii xajaaj wuu fikiroo dadkiisiibuu dib ula tashaday oo kaartooyinkiibuu beddelay markaa wuxuu idhi nimankan xaggaynu ka mari laanahay waxaa la yidhi colbaa hoosta ugu jira aayatulayaala oo soo mara waxadinayoo qalbiga colka waa quraa'ada baa lagu yidhi nimanka qur-aanka yaqaana ee cilmiga yaqaana ee fuqahada ah ee
dadka ruuxda macnaha waa dadka ruuxdooda hogaaminaya nimankaasi qaybtaasay ka dagaalamaan colka dhinacaasay ka dagaalamayaan nimanka hal ataago sidii buu yeelay col gaar ah oo garab gaar ah guutooyin gaar ah buu u sameeyey dadkii culimada ahaa iyo quraada ahaa oo iminka magacyadooda halkan aynaan ku soo koobi karayna ragga caankee la wada yaqaano ka mida kuwii baa markaas si gaara loogu duulay gaw baa laga dhigay intoodii badnayd maalintaasuu jebiyey xajaaj binu yuusuf colkii uu hogaaminayey cabduraxmaan ibnu muxamed ibnu ashcaf maalintaasuu dhowr iyo siddeetankii taariikhda taqriiban 83 meelahaasay ahayd colkaas maalintaasuu jebiyey ninkii la odhan jiray ibnu ashcaf fadhi uma yaallo tiro kooban buu kaxaystay uu fakaday uu firdhaday wuxuu u galay ninkii ka madaxda ahaa gaaladii lala dagaalamayey ee waqooyi bari ninkii uu la dagaalamayey laftiisa ayuu u galay ee uu jebiyey boqolaalka magaalo ka qabsaday markaasaa wuxuu idhi waa kan aniga iyo tiimkan ila socda sodomeeyo ninoo xul ah ayaa la socda dee magan baanu kuuna isaguna gaalkuna muslim kala jaba wuu jecel yahay wuxuu idhi ninkan khadiyaabaabaad ka joogtay oo dhib buu kuu geystay marka hadduu maanta kuu soo galayba dee ku karbaash oo ku garaac kuwa isaga soo diraya kolkii hore ee xajaaj iyo cabdulmalik iyo soo dhowow buu idhi oo iska fadhiiso ninkii xajaaj la odhan jiray intaynaan horta siduu ku dambeeyey ibnu ashcafkaasi intaynaan gaadhin dee ninkii colka madaxda ka ahaa kolkuu fakaday xajaaj dadkii cidlow ka helay iyagoo raaba ah waa ragguu xukumi jiro oo u yaqaana dadkiibuu bililiqaystay wuxuu ka dhigay waxoodiina qaniimad buu u qaatay wixii helana wuu dilay markaa raggii uu yaqaanay buu mid u qabtay oo raggu soo qabtay waxaa ka mid ahaa imaamka aynu taariikhdiisa soo sheegnay ee caamir ashacbi alimaamu thiqa alfaqiihu almuxadith almufasir imaamkaasaa markiina colka abaabulayay ayuu soo qabtay waana is yaqaaneenoo dee raggii uu biilka siin jiray la joogayay buu ka mid ahaa markaa wuxuu go'aansaday shacbi inuu qaladkiisa iska qaato ayuu go'aansaday xajaaj buu soo galay oo u yeedho dhinka dee uu soo qabto waa la hor keenay markaasuu salaamo wuxuu idhi isagaa shacbi ka sheekaynaya wuxuu idhi fasallamtu calayhi bilimra uma qultu waan salaamo waxaan ku idhayaa taliye ama dee amiir baa lagu magacaabi jire amiir dee waan ku salaamay waxaan kuu sheegayaa anigu wixii aan galay diidina maayo dafirina maayo waan ka cudur daaranayaa gef buu ahaa gef baanu ku dhacnay gefkaa waan ku qanacsanahay inuu maaragtay gef ahaa waanaan ka noqday arrintaa waanaan ka noqday dee ilaahayna guushii waa naga kaasi maantana go'aanku aduu kuu yaallaa haddaadna cafiyaysa iyo haddaadna ciqaabaysaba ilaahay baa awoodda iskale laakiin dee annagu gefkaa ku dhacna xajaaj baa markaa wuxuu yidhi markuu arkay inuu iska qirsan yahay gefkii oo shacbi uu ka garaabay dagaalkaas inuu ilan dagaalku muslimkiiba waa la kala jebiyey muslimkiibaa la kala jebiyo nidaamkii islaamku u dhigay ee beecada iyo dee tartiibtii dee waa ninkan waa nin caalimee uu garanaya waanu qaldannay buu dee cadhaana qaaday cadhadii aanu adiga kugula dhacnaana qaaday laakiin arrintu gef baa ahayd markuu arkay inuu ictiraaf sameeyba xajaaj baa la hadlay ninkii sheekh ahaa wuxuu ku yidhi adigu waxaad ka wanaagsan tahay qaar badan oo seeftoodu dhiiggayagii uu ka dhibqayo oo been noo sheegaya oo odhanaya anugu kumaan jirin anugu halkaasaan iska fadhiyay anugu kitaab baan akhriyayay kuwaasaad ka fiicantay buui runtaad iska sheegtaa adugu iminkana waxaan kuu sheegayaa buui aamin baad ku dili mayno dadkaan dilaya kugu dari maayo waan iska kaa daayay laakiin waxaan kuleeyahay waan ku waraystee yaa shacb kayfa wajadta annaasa bacdanaa bal markii hore waa inagii wada joognee
intii aynu kala maqnayna nala dagaalamayseen nimankii aad raacda ee aanu kala tuurnay bal ka warran sidee xaalkoodu ahaa shacbiga markaa ka warrama waxay yidhaahdeen wallaahi soo jeedna wuuna dilay waxa soo jeed kale dee niman jabhada baanu haynoo firdhala buur iyo bannaan walbana orod baanu ku dhaafay cabsiduna naguma yarayn wafaqadnaa saalix alikhwaan rag badan oo aanu saaxiib ahayna waanu weynay walam ajid min alamiiri khalafan adigana wax ku dhaambaba maanaan aragba xajaaj baa markaa wuxuu uhi insarif yaa shacb fansarafa aaminan shacbi halkaasuu iskaga daayay waxaa kutubta taariikhdu ay tilmaamaysaa dadka xajaaj la hor keenay inay dil uu u geysto garbaduub u dilay inay gaadhayeen 100 ilaa 130 kun oo qof oo muslimiintii ah oo culimo iyo cuqaalba leh iyo niman dagaalamay iyo muslimiin u leh marka isagu waxay ahayd sida sharcigu wuxuu ahaa ilaa waa daalin oo uu gafayaa kacdoonkii haddii la kala tuuray in dadkan aan la dabagelin kuwada firdhada nimanka buqaadda la yidhaahdo mar haddii awooddooda la jabiyo in la xidhxidho iyo in hubka laga qaado uun mooyaane inaan dee gawda laga saarinba ilaa qofka awooddiisu in la jabiyo oo dowladda islaamka laga badbaadiye mooyaane in isagii la baabi'iyo ujeeddadu may ahayn xoolihiidana waa xaaraana buqaadda lama qaniimaysan karo ka dhaawaca aan lama dili karo ka firdhada waa la iska dayn wixii kumuu dhaqmine ka faa'iidee buu islo 100 kun buu garbaduubu dilay ilaa 160 kun oo qof ayuu iska baraaciyey raggu dilay waxaa ka mid ahaa Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas mujaahidkii weynaa raggii jannada loogu bushaareynayay min ka mida inankiisii Sa'd raggu markaa taariikhda muujiyey waxaa ka mid ahaa Saciid ibn Jubayr taabicigii jaliilka ahaa taabiciye buu ahaa waxaa mucallin u ahaa Cabdullaahi ibn Cabbaas Cabdullaahi ibn Cumar iyo Caaisha dadkii uu ka qaadan jiray cilmiga ayay ahaayeen qarnigaasunbuu isaguna ahaa nin fiqi badan oo cilmiga xadiidkana yaqaana tafsiirkana aad u yaqaano ahaa ibn Cabbaas cilmigiisa raggii ka qaatay buu ahaa Saciid ibn Jubayr markaasuu ibn Cabbaas ku yidhi dadka waxbar haata oo ma adigoo joogaan ummadda waxbaraa buuri ilaahay fadligiisa miyaanay hayn buuri haddaad saxan tahayna inaan ku saxo oon ku akido haddaad khaldantana aan ku toosiyo taasuun baan kuula taaganahaye cilmigii aan aqaanay waad baratee dhaqaaji ninkaa isaga ahay Saciid ibn Jubayr waxaa oo markii xajaaju dee dadkii colkii ka guulaystay raggii cararay buu ahaa kolba meel buu cararay wuxuu laakiin aad u jeclaa xajka iyo cumrada sanad walba meel kasta ha marayee wuu soo xaji jiray oo wuu soo cumraysan jiray Saciid ibn Jubayr cibaado badanna uu ahaa zaahida imaamkiisu weyn markii dambe waxaa helay ninkaa la yidhaahda xajaaj ayaa dhab soo siiyey wuxuu doondoonaba muddo dheer kadib waa ragga uu ku khaatuma xumaystay xajaaj wuu iska dayn karaya wax dhiba kuma haynin nin caalima aqoon-yahana hubsida nin iska tegay wuu dayn karaya laakiin waa ka aargoosi wuu soo qabtay markii uu soo qabtay ayaa uu u manno sheegtay wuxuu idhi sow raggii culimmada ahaa in wax siin jiray maad ahayn haa sow kaa kuumaan sabayn wax badan buu akhriyay haa intaasi way jirtaa buli maxaa kugu kallifay inaad kacdoonkan ka qayb gasho wallaahi si kastaba ahaata laakiin waxaan ka mid ahaa buu raggii taageeray ibnu ashcaf raggii taageeray baan ka mid ahaa buu markuu arkay inuu dilayo waxba ma sii barbaryin isagu waxba muu baryin laakiin wuxuu isku dayay inuu taariikh wanaagsan ka tago oo uu ninka hadalka iskaga caabiyo maxkamadiis meeshiisii uu dadka ku layn jiray buu soo joojiyey kursi dheer buu qaadanayaa 100 seefood buu hareerihiisa ka lulayaa kibir badan buu muujinaya wuxuu ku yidhi masmuk maxaa lagu idhaahdaa waxaa la yidhaha buu Saciid ibn Jubayr ayaa la yidhaahdaa
xajaaj baa hadlay waxa uu anta shaqiy ibn kusayr magacaaga saasaa la yidhaahdo magaciisii buu bedelay saciidkiina shaqi buu bedelay jubayrkiina kusayr ama kasiir ayuu bedelay kii guuldarrada badnaa ee jabnaa ayaa tahay weeye macnaha saciid baa markaa ku yidhi bal ummii kaanat aclama bismi mink adeer hooyaday baa kaa taqaana magacayga magacay hooyaday ii bixisay waa kaad sheegtay maaha saciid ninkii la odhan jiray xajaaj baa wuxuu idhi shaqiita ant wa shaqiyat ummuk hooyadaa iyo adiguba wax guuldarraystay baa tiinooyinkaani ku dhacday isaguna wuxuu idhi alghaybu yaclamuhu allah adeer waxa maqan ilaahay baa yaqaana ka shaqiga ah iyo ka saciidka ah waa qayb oo ilaahay baa yaqaana waxa uu yidhi laubadilannaka bidunya naaran talada walla inaan adduunyada kaaga dhigi doonta naar holcaysaan ku gelin doonaa buuhi adduunka saciid markaa wuxuu idhi low calimtu anna daalika biyadika latakhadtuka ilaahan haddaan ogaan lahaa inaad wax cadaabto dee ilaahbaa baan kaa dhigan lahaa laakiin ilaahay unbaa wax caabuda anugu ilaahay baan caabudaa ilaahay baa wax cadaaba dhinac kale uu bedelo wuxuu idhi famaa qawluka fii muxamed ibni cabdilaahi maxaad u aaminsantay hadda ninkii sheekha abu caynkaa ku leeyahy waxau idhi nebiyu raxmati wa imaamu alhudaa waa nebigii naxariista iyo hanuunka xajaaj baa hadle wuxuu idhi famaa qawluka fii caliyin afi nnaari am fi ljanna calina dee waa kii caayi jiray markaa xajaaj iyo aalu beytka markaa wuxu uhi maxaad ka aaminsan tahay cali man inuu naar ku jiro mise janno saciid baa wuxuu idhi low dakhaltuhaa fa ra'aytu ahlahaa la caraftu haddaan janno iyo naar geli lahaa dee waan ka soo warrami lahaa waxa ku jira janno iyo naar adeer nin galay oo soo eegay dee mahi waa jikaarun waa la isjikaaraya waa la ishuruufayaa meesha xajaaj baa wuxuu idhi famaa qawluka fi lkhulafaa raggii madaxda ahaa ee ka dambeeyey maxaad ka aaminsantay saciidna wuxuu idhi lastu calayhim biwakiil malag ilaahay u diray anigu mayhi xisaabtooda ma haya buuhi iyo qoraalkoodana ma hayo xajaaj baa wuxuu idhi fa ayuhum acjabuu ilayka hadda waa ninkanuu dilka u soo taagaybu waxaanoo su'aalaa weydiinaya canaad iyo kibir fa ayuhum acjabuu ilayka keebaad la dhacsan tahay ama jeceshahay nimankaa madaxda ah ee reer bani umaya iyo khulaafadii ka horraysay yaad jecesha qaala wuxuu idhi ardaahum likhaaliqih ka ilaahiisa raalligeliyumaa nala raalli ka ahay xajaajba haddana wuxuu idhi fa ayuhum ardaa lilkhaaliq oo keebaa ilaahay raalligeliyey qaala cilmu daalika cinda allah dee taa ilaahay unbaa yaqaanabu anigu dee maqluubtoodaan ku jiraa qaala wuxuu idhi anta abayta an tusadiqanii aw an tasduqanii waa diidday buuhi inaad mar qura nacami tidhaahda soo maaha kuna beenin maayo kuna rumayn maayo buui markaa wuxuu idhi dhaafiya oo halkaa ku soo dila kolkii la yidhi hala dila buu ihi wajahtu wajiya liladii fatara asamaawaati waalard ilaahay baan wejigayga u jeediyey oo qibladan qaabila kolkaasuu ihi wajihuhu likhayri alqibla qibladuu sheegaya ka jeediya oo xaggaa kale u jeediya markaasaa wuxuu idhi fa aynamaa tuwalluu fa tama wajhu allah meeshii la ii jeediyaaba waa wejigii ilaahay kaasuu idhi kubbuuhu calaa wejhi dhulka u rida foorariya meelahanuu sheegayaba ka jeediya markaasaa wuxuu idhi minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa dhulka laftiisaa kiina laga soo saaraya kaasuu idhi idbaxuuhu aninka gowraca markaasuu ashahaatay ducana wuu ku soo gebagabeeye wuxuu idhi allaahumma laa tusallidu axadan bacdi ilaahayow ninkaa ah qof iga dambeeya ha ku sallidin qofka u dambeeyuu dilaa ilaahu aniga aan noqdo ducadii baa ilaahay horay ka aqbalay 11kii ramadaan ayaa taariikhdu markay ahayd hijrigu 11kii ramadaan ayuu dilay saciid ibnu jubayr isaguna 10kii dambe ramadaan buu dhintay ninkii u dambeeyuu dilay buu ahaa waxaa ku dhacay cudurka kansarka la ydhaa xajaaj binu yuusuf markaa wuxuu u qaylin jiray sida dibigu u qayliyoo kale khooq waa kan dibigu idhaahda saasoo kale u qaylinaya xajaaj
qolaa ku arkay markii dambe naar waxa lagu arkay riya lagu arko ilaahay muxuu kugu sameeyay baalin wuxuu igu sameeyay buuri waxa la iga raaco igu daraan dilkii Saciid ibn Jubayr waay markuu sii dhimanayay ninkaas Xajaaj bin Yuusuf la yiraahdaa wuxuu ilaahay dambi dhaaf baan ku weydiisanayaa dadkuna waxay sheegayaan inaanadii dhaafi karaynin ogow ilaahay dambi dhaafkaaga ayaan rajaynayaa laakiin dadku waxay sheegayaan inaanad awood u lahayn adii dambi dhaafto marka dadka inaad beeniso oo taadaadii rumaysaaban sugayaa buu leeyahay Umar ibn Abdul Aziz oo ay dabcan dawladii reer Bani Umayya ka mid ahaa laakiin aynu ka soo sheekaynay cadaaladiisa ragii canaanan jiray buu ka mid ahaa Xajaaj bin Yuusuf barigi dambe ee oran jiray nin daalima buu ahaa laba arrimood baan laakiin ninka isaga ku kamtaabuur ama aan idhaahdaa buu ku wanaagsanaa kelmadda markuu sii dhimanayay uu rajaha muujiyay ilaahay rajihiisa inuu ilaahay rajaynayo uu muujiyay iyo quraanka wuxuu u qabtay quraanka uu jeclaa quraankana aad buu uga shaqeeyay oo ninkii dhibcahan ku sameeyay buu quraanka dhibcaha Soomaaliya quraanku markii hore dhibcana muu lahayn xarakana muu lahayn xisbiyadan isaga sameeyay dadka xufaada ana aad buu jeclaa quraankana uu yaqaan oo akhri jiray ninkaas labada arrimood marka laga tago waxa kale oo aad iyo aad awood badan u saaray uu baabiyay nimanka khawaarij la oran jiray ninka ugu adag ee hilifaa u qaaday buu gaal iyo khawaarij markaas arrimaha dhowrka ah ayaa aan ka soo reebi karaa ibn Kathir oo taariikhda ka waramaya ya Imam Dhahabi rahimahullah mid waliba markuu taariikhdiisa ka sheekaynayo wuxuu leeyahay xoogaa xasanaada uu sameeyay laakiin badweyn dunuuba bartanka ugu jira ashahaadana uu ku dhintay dulmigiisii waa qirayna inuu ahlu naar yahayna ma garan karnay arrinkiisa ilaahay baa yaqaan hadduu ka dhaafayo iyo haddii daalim buu ahaa muslina weeye macnaha nin muslina oo ashahaado ku dhinto daalina oo intaasoo muslina laayay dilkii ugu badnaa ee nin muslimiin dilo ninkii ugu badnaa caalamka soo maru ahaa marka waxa loo yaqaanay al-mubiir al-dhalim in daalimuhu mubiir oo dhulbiisa ayaa loo yaqaanay marka arrintan culimadu ay ka waramayaan dagaalka isaga dadka uu ku laayay waxa loo yaqaanay yawmul jamaajim maalinkii madaxyada jumjumadu waa madaxyadii baa meel walba ku batay madaxii dadka muslimiinta dhakooyinkii ayaa meel walba ku batay waxyaabaha laga faa'iideysanaya qisadan haddaynu dib ugu soo noqonno waxa ka mid ah arrimaha siyaasiga ah marka ay noqoto waxa fitnada la yiraahdaa ama ninkan meesha haysto lagu kacaa kicitaankaasi inuu marka hore dadka u sahlan yahay laakiin mustaqbalkiisa dambe uu yahay mid laga murugoodo sidaa daraadeed baa raggii berigaa ku kacay ee culimada u badnaa Xajaaj iyo dawladii reer Bani Umayya way ka murugoodeen markii dambe markay arkeen siday uga dartay iyo siday arrintu u xumaatay ay faraha uga baxday waxa laga faa'iideysanayaa bahasha fitnada la yiraahdo waxa la fitnadu daaman la qabtaa bay leedahay daba la qabta ma leh daamanku waa maxay balaaya fitnadu ka hortagun bay leedahay laakiin hadday soo butaacdo daba la qabta ma way kugu muruxsanaysa way ku gali marka haddii ay fitnadu bilaabanto ta'ummu saaliha wa taalih cid walba way gaari intaasoo aqoonyahana culimaa fuqahaa ayay galaaftay dagaalka isaga waa ka ilaahay yiri wattaqu fitnatan la tusiibanna alladhina zalamu minkum khaassa waxa iska ilaalisaan fitno iyo balaayo aan ku dhacaynin oo kaliya kuwa dulmiga sameeyay laakiin dadkoo dhan wada gaaraysa iska ilaaliya buu ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waa in la fikiraa oo la yiraahdaa ninkan hadii lagu kaco maxaa ka imanaya in lagu kaco meeya xaq tahay horta hadii uu xaqba u leeyahay in isbedel lagu sameeyo sidee isbedel lagu sameyn kara hadii la isla isbedel ku sameeyo ummaddu ma isku raacaysa
mise isagaa dadka isku laba rogayo oo wixii uu samayn jiray wax ka daran samaynaya oo siyaasadda shareecadda waxaa la isticmaala waxa la yidhaha almuwaasanatu bayna almasaalixi waalmafaasid dhibkiiyo dheefta laysu miisaamaa waxaa kaloo laysu miisaamaa labada mafsado hadduu ninkani fasaad samaynayo fasaadka weyni ma dhalanayaa ayaa la yidhaahdaa marka yurtakabu biakhafi almafsadatayni biijtinaabi akbarihima laba dhibaato tayar baa la xamili iyadoo taweyn laga cararayo haddii dulmi laga cararayay iyo waxbuu qaatay iyo waxbuu kharribay oo haddii dagaal lagu qaadana meeshuba ay kala kacayso oo dalkuba baaba'ayo markaana waa loo kaadin halkaasaa laga eegaya waxyaabaha laga faa'iidaysanayo waxa ka mida shaygan la yidhaahdo muslimka marka dhibaatadaasi ay ka dhex dhacdo shisheeyaha ka faa'iidaysta shisheeyaha cadowga shisheeyaha ka faa'iidaysta shisheeyuhu inuu kugu soo duulo uu kula dagaalamo wuxuu ka jecel yahay inaad adigu kala jabto oo aad iskaraacdo isaguna halkan uu nagtaada fadhiyo kugu qoslo soo maaha taasuu ka jecel yahay Soomaalidu waxay yiraahdaan lafa geel iyaga la isku garaaca lafa geel madaad jabin kari weyda laftan qaad dheero tan kale ku jabi marka la waxay yiraahdaan gudin yahay imaad goyseena geed baa yidhi baa geed gudin yahay imaad goyseena barkayda kugu jira gudintu waa tan qalloocana saasoo marka hadiya jeer waa idinka arkayo geed baa dabada laga galiyaa geedka maxaa la yiraahdaa daab baa la yiraahdaa daab gudimeed daab baa la soo qaadaya saaw qalloocan mindidii birta haydna afka la gelinaya geedkii baa lagu garaacaya marka geed baa hadlay wuxuu yiri imaad goyseene qayb geed kale kugu jira marka maanta gaaladu muslimkay soo ciyaarsiiyaan midba lagu dhufanaya kana hubka la siinaya kolba kana oranayaan anaga kula jirno ka celinayna marka taana waa in lagu xisaabtamo fitnada had iyo jeer muslimka dhaxmartaa inay ka faa'iideysanayaan shishaayuhu ka faa'iideysto ku soo dhax galaana waa shaytaan waligiiba ka tagi maayo waxa halkan aynu ka faa'iideysanaynaa dadka mudan ee iskaba dhowrsoon ee iska wanaagsan ee iska fiican ummaduna u hanweynti diintooda iyo cibaadadooda iyo cilmigooda iyo sumcaddooda loo hanweeyay mararka qaarkood inay ku simbiriraxan karaan siyaasado qalloocan ayaa laga faa'iideysanaya halkan oo waaqicu si qalloocan isu tusi karo ama ay sabri kari waayaan ama ay caradu ku badanayso sidaa daraaddeed ayaa waxa culimadan faraha badan aynu soo sheegayna lagu kaxaystay waxa lagu kaxaystay ninkan aynu iska fujinayna xajaaj la yiraahdo maanta xajaaj la dagaalankiisa miyuu muran ka jira miyaad ka shakisantay inuu xaq yahay taasaa dad badan lagu kaxay ninka dhiiga cabaya aan iska fujinno dee may odhanin raggan la dagaalamay war ninku keligii maahe dee khilaafad baa dhisan dowlad islaamaa dhisan way awood badan tahay muslimkii iskuma iyadii baa la isku raacay marka cidi khilaaf baa jiro laakiin dad la doortay bay ahaayeen marka sidan ku soo baxay ama aan idhaahnee dee isbeddelkan boqortooyadan ku soo baxay dee iyagii baa si caama loogu wada socdaa dad badan habadii danaad qalloocba ha sameeyeen waxaa lama eegin sidaa daraaddeed ba axmed ibnu xambal raximahullah wakhtigiisii waa la xidhay waa la garaacay 4 calancalood baa laga garaaci jiray muddo dheer buu xidhnaa madaxweynayaal baa isu beddelay wax kale laguma xidhaynine waxa ay ummadii wakhtigaa joogtay dadkii madaxda u ahaa dadkii madaxda wakhtiga ahaa ayaa waxay lahaayeen qur'aanku waa makhluuq nimankii muctasiladii baa fikirkoodii liqsiiyey isagii rag lamid oo culimana waxay lahaayeen qur'aanku waa kalaamkii ilaahay ha odhan sidii baa lagu garaacay marka dadka qaarkood baa odhan jiray axmedow dee aan kuu hiilinoo nimanka la dagaalanno war way ka daraysaa iska daaya buu jir waryaale war way ka daraysaa anigii dhow qof bay taagan tahay wallaahi in haraggeeda lagu celin kari waayo oo meel laga soo qabta la waayo iska daaya buu odhan jir munkarka xumaanta waa la diidayaa
dadka mas-uuliyiinta ah oo lagu adeeci maayo laakiin xumaantu dee darajooyin bay leedahay lagu diido waa kaa nebigu mid qalbiga ah iyo mid qowlka ah iyo mid ficilka ah buu tilmaamaya marka ninkii awooddaba hayay hadduu xumaan samaynayo haddaad qowl ku diidi kartana waad ku diidi haddii aad qalbiga ka dhacdana waad ka nici ood qowlkaba lagu diido laakiin qadiyadda ah gacanqaadku dee waxaasaa ka soo baxay arrinkaa aad ka u adkaaday waxaa kaloo xusid mudan markay wax dhacaan in culimmada had iyo jeer iyo aqoon-yahanka wax la weyddiiyo dadka culimmada aqoon-yahanka iyagu dee arrimaha si wanaagsan bay u miisaami karayaan laakiin dadku hadday isqanciyaan dhibkeeday leedahay alla wuxuu uhi waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituuna minh marka cabsi iyo amni xuma timaaddo nimankan munaafiqiintii warka way faafiyaan may u celiyaan dadka aqoonta leh ee ulil amarka ah ee ahlulcilmigu ka mid yihiin kuwaasaa garan lahaa arrimaha sida loo miisaamo waxa la sheegaya iyo waxa aan la sheegayn marka halkaa waxaynu ku soo ururinaynaa lama laha dulmiga ha la saacido madaxda dulmigooda waa laga beri noqonaya laakiin markay noqoto in isbeddel la sameeyo isbeddelkaasi waa inaanu fitno keenayn wixii laga cabanayo waa inaanu ka darayn oo waxaa la yidhi ka door waa inaanay ka dardhalin adigoo isla ka ray oo waxaa jira mushkiladda jirta ka ray wax ka daran waa inaanay keenayn